Hantidhawrka guud ee qaranka ayaa ka soo saaray amar lagu mamnuucayo in hay'adaha dawladdu ay galaan heshiisyo waaweyn inta laga ansixinayo xukuumad rasmi ah. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska hantidhawrka ayaa lagu cadeeyay in hay'adaha dawladda qaar laga hor istaagay tallaabooyin ay ku saxiixeen qandaraasyo ku kacaya malaayiin dollar. Saxiixa qandaraasyadaas uu hor istaagay waxaa qoraalka hantidhawrka lagu sheegay inay khatar ku ahayaan dalka, isla markaana iyadoo taas laga duulayo gebi ahaanba la mamnuucay in heshiisyo la saxiixo. Xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka waxa uu ku warhelay in qaar ka mid ah hay'adaha dawladda ay bilaabeen qorshayaal lagu meelmarinayo dhaqangelinta heshiisyo waaweyn oo ku kacaya malaayiin dollar, kuwaas oo dalka ku yeelanaya saameyn dhaqaale oo aad u xooggan, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hantidhawrka guud. Hantidhawrka ayaa hay'adaha dawladda ka joojiyay inay heshiis galaan ilaa inta laga ansixinayo xukuumad cusub. Sidaas oo kale dhowr jeer ayuu heshiisyo u burburiyay hantidhawrka intii ay jirtay xukuumadda isgaarsiinta. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wada oo ku howlan xulashada xukuumaddiisa, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada.